madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigii miisaanka cuslaaye uu hogaaminayay ee safarka shaqo ku marayay deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. boqolaal dadweyne ah ayaa safaf dhaadheer u galay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliland, waxaana ay shacabku ku dhawaaqayeen ereyo ay ku soo dhaweynayaan wafdiga madaxweynaha. munaasabad ballaaran oo lagu qabtay bogcad ballaaran oo ku taala gudaha degmada Qoryaale ayaa hal abuurayaal isugu jira rag iyo haween ay waxqabadka xukuumadda midho suugaaneed ku sifeeyeen. Axmed waadan kugu talamay naye talaadahay Axmed waadan kugu talamay naye talaadahay ifkana hatta soobina khiro cadaab hategin Allahu talaada tir anjabaan kayel kudigi maayo hogaanka dalkeenu wuxuu antikada hakada la kaasho badbaadiya qaranka bulshada kaabaha gindata bedelaha tayarta badbaadka bilaa shugadigaha waxbarashada baahday wuxuu guugiisa bayaan ugu qeexay mid daba kaba bayre taariikhdu ma boodo ilaa been ma qorto wuxuu ballan qaata galay wax yar buu ka baaqsaday bulshada adigoo balaqada kama baaqsan oo noo artay wali xalin gobaadeen xadigeed ba Soomaaliland xayskuba u daay waxa xoorka laga maalayaa xuliya heemaale xariir buu ku dooyoolayaa xodaya kiile xayrooba hooyooyinkii xoodanaan jiray odayaal xaraarugay garhkii soo xilnaysadee xayraamadii yaacayiyo xabaglihii haagi xamdi mahad ilaahay oo adiga xiska noo furay. barasaabka gobolka Togdheer xildhibaanada laga soo doortay Qoryaale maamulka degmada Salaadiin iyo Cuqaal ayaa iftiimiyay sida niyadsamida ah ay u taageersan yihiin xukuumadda Soomaaliland iyo waxqabadka ay ka hirgelisay dalka. waxa hadalkooda ka soo baxa yaa dadku wuxuu qabaa inuu jecel yahay xukuumadda maanta shaqeynaysa waxa dadka Soomaaliland ka qabateen yaanu ku mahadnaqaynaa xeer loo yiri waxaan hadalka ku soo dhaweynayaa markii hore madaxweyne waan ku dooranay imkana waxaan khadmaynaada kuugu celino ilaahay baa mahadle waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaan uga mahadnaqaynaa waxa uu jamhuuriyadda Soomaaliland u qabtay si dhinac walba leh aad iyo aad uga mahadnaqaynaa waxyaabaha degmada Qoryaale gudaheeda u qabsoomay waxyaabo waaweyn baa loo qabsoomay safarka xowlaha noqoshada ummadda ah farxad bay noo tahay aad iyo aadna waan kugu bogaadinaynaa waxaanu kugu soo dhaweynaynaa degmadii Qoryaale halkan qura maaha dalka oo dhan dhulkii aanu soo maraynay waqtiga madaxweynuhu soo marayay meelo kooban baa ahaa madaxweynaha soo maray waxay ka sinaayeen waxa tahay madaxweynihii ugu horeeyay ee soo booqday waxaan leeyahay mar labaad anoo ku hadlaya afka degmada Qoryaale dareenkoodana hoosna og waxaan madaxweyne ku sheegaynaa degmada Qoryaale waxa u diyaartay mar dambe inay 5 sano dambe ku darto waa soo dooran mayno madaxweyne taasana ku sheegaynaa waa ku diyaar degmada Qoryaale waxaan idin leeyahay soo dhawaada meel kamida dhulkiini hooyo ee soo mareyseen ee ugu soo baxdeen inaa soo booqataan ku soo dhawaada oo ah degmada Qoryaale madaxweyne Qoryaale sidoo ku sheegay inta gudoomiyaha ka ah oo meel dadaashay runtii wax qabsatay oo alla qabatay talooyinkii iyo tusaalooyinkii aad siinayseen xukuumadda ku hagaayeen iyaguna ku hagaayay gudoomiyayaashooda muxuu ahaa barasaabada wasiir ku-xigeenka beeraha iyo wasiiru dowlaha maaliyadda Soomaaliland ayaa ka marqaati kacay sida wadaniyada leh ay shacabku u qaabileen wafdiga madaxweynaha Baki ilaa Burco meel walba way safnaayeen waxay tusaysaa shucuurta jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa meel kasta ilaa Baki ilaa maanta Qoryaalaha aynu joogno sida ay dadku soo dhaweynayeen ay ugu riyaaqayeen ay ugu faraxsanaayeen si ay madaxweynaha ishaasuna ka qaadaan anigu waxaan arkayeen marka Mareykanka joogay waxaan arki jiray usaa iyadoo aad moodo ma u jeedo ninkii Khomeini ee Iran haystay iyo inay salaamaan ama ay gacantooda doonaysay waan arkay runta fiican cid doonaysa inay taabato madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha kale aan arkay ee ummadiisu ay doonaysa inay taabato ee ay salaamaan ee ay kelmad gaadhaan hadduu عريان يهي يهدو تاغي يهي يهدو سعود كجرو ومدى رير سومالي لان ومدحوينها قرآن الكي اي سلامية
qodobka aan ku daraya waxa weeye waa qodobkan waxqabadka war madaxweynuhu dhismahu kama shaqeeyo madaxweynuhu kama shaqeeyo wadada qura maaha waxuu ina bedelay maskaxdii jamhuuriyadda Soomaaliland sida aynu u fakarna dadahaan sida aynu maxaan ku raadayay nolosha u eegno wuxuu wada noolaashuhu yahay war wuxuu yiri wax wada qabsada madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa isaguna ka dareen celiyay soo dhaweynta loo sameeyay kale qoryaale degmada qoryaale halkan nagu soo dhaweeyay aad iyo aad baan ku mahadinaynaa sida iyo qiimaha sharafta leh aad noo soo dhaweyseen aad baan ku mahadinaynaa hadalladii qiimaha lahaa ee halka laga soo jeediyay haddii aanu nahay waftiga ila socday aniga iyo waftiga ila socdaba waxaan u maraynaa dalka inaanu xogogaal u noqono baahiyaha dalkaygu qabo waxa uu tabanayo waxa uu sheeganayo waxa uu talooyin hayo waxa uu ra'yi hayo nagu biirinayo intaba inaan dhageysano diyaar baanu nahay waajib iyo xilna saaran weeye marka haddii aan taxarsoonta dalka ugu wareegaynaa waa inaanu hataanu dawladdii u nahay oo mas-uuliyaddii xilka u hayno waa inaanu ogaano waxa ay tabanayaan iyo waxa ay ra'yi hayaan iyo waxa ay tala hayaan ka annagaasaa taasaana anfacaysa ummaddana taasaa anfacaysa marka aad baan idin dhegaysanay aad baan idinku mahadnaqaynaa soo dhaweynta la yaab kale ee aadna tusteen insha allahu tacaala mahadnaq baan idinka soo jeedinaya waxaan idin ballan qaadayaa in dadaalkii aanu wadnay aanu dadaalayno oo aanu wadayno oo waxaanu kordhino mooyaane annaan wax kale ku fakaraynin waxaanu yeeli doonaa insha allahu tacaala inaan intaanu kasii kordhino mooyaane inaana kolba ka gaabin waxaanu hore u qabanay insha allahu tacaala waanu sii kordhinaynaa waynu laabanaa taasina wadajir bay noqonaysaa waxaynu ka wada shaqaynay noqonaysaa horumar baynu gacmaynu isqabsanaynaa way is aaminaynaa way isku kalsoonaynaa ilaa baynu ku tashanaynaa waxayna dalkeena iyo dadkeena hore ugu dhaqaajisanaynaa markaa soo dhaweyntaana soo dhaweyseen aad baa ugu mahadsantihiin si sharaf leh iyo qiimo leh baa noo soo dhaweyseen wixii qabasho iyo baahi u baahna waa naloo sheegay wixii aanu ka qaban karno iyo wixii aanu ka kordhin karin waan ka kordhinaynaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo intii uu ku sugnaa degmada Qoryaale waxa uu dhagax dhigay jid laamiya oo dhererkiisu dhan yahay 4 kiiloomitir oo isku xidha degmada Qoryaale iyo laamiga dhararan ee u dhaxeeya Burco iyo Laascaanood madaxweyne waxaanu haysanaa oo wadadan waa 4 kiiloomitir halkan ilaa Qoryaale $100,000 baan urursanay oo 20 imika aanu hawshi ku galay 80 kalena gacantaanu ku haysanaa marka madaxweyne inaad noo dhagax dhigto oo wixii la noogu dari karo la noogu daro ayaanu u baahannahay marka madaxweyne noo dhagax dhig madaxweyne way dadaaleen reer Qoryaale runtii waxay samaysteen imika intii doox marayay oo dhan waxay soo dhigeen wixii loo oran jiray Irish Crosska way soo sibdiyeen wadada dhagaxaanta way taallaa way wadaan muxuu ahaayeen kabisaadii niman dadaalay oo hawsha qabsaday oo lacagtooda wax ku qabsaday intii ay soo ursaday weeye waxa ay doonayaan wixii tabarteena dawladda dhexe tabarteeda madaxweynaha ugu darto madaxweyne 3 kiiloomitir iyo googa magaalada Qoryaale ama 4 kiiloomitir oo dhow 100,000 googa waa kuwa urursanay insha Allah wixii kale nagu dar karna waa ugu daraynaa marka aad iyo aad baan habaliya reer Qoryaale إن شاء الله تعالى أنا وكنت لقلنا وحسبتنا وحيتي دمان وإذا كفرنا وإذا لقدرنا إن شاء الله عبساق فرح عبد الله تي في قرنك الصومالي لان برعو